runtii shirkan guushiisa iyo quruxdiisu waxay ku timid waxa ka ugu dambeyn aan si weyn ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo isaguna inagu soo sharfay inuu shirka inoo furo si rasmi ah inoogu furay runtii guusha shirka iyo quruxdiisa iyo sida quruxda badan u qabsoomo intaas oo la isku geeyay ayaa wada lahaa waxa garsoorka oo kaliya uu lahaa maaha waxa weeye wax dhamaan ay wada lahaayeen marka taas ay ku timid quruxdan iyo maaragtay waxa ka soo baxay waxa runtii shirka ka soo baxay qodob aad iyo aad u muhiim ah oo aan isleenahay haddii la bilaabo wax ka qabashadooda iyo hirgelintooda micno weyn bay dalkan u samayn doonaan haddii ay noqoto federaaleynta garsoorka haddii ay noqoto dib u habaynta hay'adaha dambi baadhista oo muhiimad gaar ah u leh runtii garsoorka cadaaladda laga hadlayana u ah asaas iyo saldhig iyo halka ay ka soo bilaabanto runtii waa laga maarmaan weeye waxay professor Hussein Ibaan ka hadlay musuqmaasuqa garsoorka iyo weli garsoore maaragtay iyo xiraaliye la jiidayo oo la maxkamadeynayo oo ama xilki laga qaadayo inaan la arag runtii dad badan baa Husseinow sidii la sheegay shaqada looga saaray hal mar baa 23 garsoore hal maalin laga saaray dadkan dabcan waruhay anagu ma ana sheegin laakiin iyaga way sheego waxaan moodin iyaga taawateen iyaga maalin walba nacay jiro maaragtay media soo fadhiisan jiray runtii waana sidoo xeraaliyuhu sheegay laga maarmaan garsoorku inuu noqdo hay'adda ugu hufan anagu waa isku xamanaa laakiin waxaan rabnaa inaan ka sii wanaagsanaano runtii waayo sababtu waxa weeye hay'adaha kale dawladda noocay doonaan ha ahaadaan ma jirto hay'ad awood u leh in qof intay dil ku xukunto la dilo qofkaas ma jirto hay'ad awood u leh qof hanti inta ka qaatay in qof kale u wareejiso garsooruhu awooddaas uu leeyahay marka yacni inuu shilimaan intuu qaato deetana qof beriya oo aan dambi gelin uu u dhinto u dilo ama uu xabsi u galo xorriyadiisa looga qaado ama qof gurigiisa inta laga qaado qof kale dulmi lagu siiyo yani hay'ad kale oo dawladeed oo ay ka suurta gali karto awoodda loo sameyn kartaa ma jirto tamarka la leeyahay garsoorku waa inuu boqolkiiba kun jeer ka duwanaada hay'adaha kale waa taas weey waxa laga yaabaa hay'adda kale qofka jooga musuq uu sameeyo waxa weeye shilimaan yaro jeebadaada ku jira inuu ka qaato laakiin xaq uu qofka leeyahay xaq kale ma siin karo way adagtay qof xaq darro kuma dili karo waa laga yaabaa inuu qori qaato ku toogto laakiin qalinkiisa kuma xukumi kara dil qalinka intuu soo qaato warqad qora xabsiga kuma dhigi karo adigu tad kaga duwantuu garsooruhu kaga duwan yahay taas weeye runtii annagoo taa ka duulana waxaanu bilownaynaa bal horta dadka soo gelaya garsoorku ha ku soo galaan si nadiif ah yaanu oday keenin yaanu xildhibaan keenin yaanu cid kale keenin hala tartamo tartan ha lagu soo galo 110 qof qofna aan qofkeeno qofna aan aqoon ayaa runtii aan soo gelino imtixaan ku soo gelnay waliba aad u adag oo heerar kala duwan aan marinay waxaan isleenahay marka runtii garsoorku meel aad u fiican buu marayaa laakiin waxaan rabnaa hal inta la gaarsiinayo meesha aynu rabno inaynu wadno idinkana waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotaan oo bulshada wacyigelinteeda iyo dadka wax sheegidooda iyo sidoo garsoorku u shaqeeyo bal dadka in la baro way qofka Soomaaliga ah ma yaqaan garsoor waxa uu yahay suuq shaqeeyo hadii suuqa laga soo xadgudbo wuxuu leeyahay cadaalad darro ay u dhacday maxkamad marka waxa u baahan yihiin dadku inay bartaan shuruucda dabcan halkan baa shalay laga soo celiyo istaraatiijiyada ugu fiican ama qorshaha la qaadan kara waxa weeye iyadoo laba la isbarbar wado wacyigelintiina la wado laakiin haani guntay ka tolantaaye aynu ku noqono nidaamkeena barbaarineed iyo waxbarasho iyo iskuuladeen iyo manaahijteen intaanu ku noqono aynu dadkeena ka dhigno dad sharciga iyo qawaaniinta iyo waxyaabahaas runtii la soo baro inaynu ku noqono waa u baahannahay runtii marka hawlahaasi waa hawl aad iyo aad haddaynu rabno ummad sharcigu hageenaynu noqono waa inaynu ka soo bilowno gunta iyo meel hoose inaynu ka soo bilowno ay noqonaysaa waxaan ugu dambeyn aan rabaa inaan ugu baaqo madaxda dalka heerarkooda kala duwan ay mas'uuliyadu ka saaran tahay arrimaha aynu labada maalmood halkan kaga doodaynay isla markaana aynu ka soo saarnay warmurtiyeedka halkan ku qoran arrimaha inay fulinteeda xil iska saaraan dalkan Soomaaliyeed haddii la rabo inuu noqdo dal
sharci uu shaqeeyo ummadu nabad ku wada noolaato xuquuqda aadamaha la dhowro dadkani ay sharafta ay bini'aadmigu leeyihiin ay yeeshaan waxaynu u baahannahay dalkan inuu noqdo dal sharcigu sarreeyo dal garsoor leh garsoor madax bannaan leh hufan leh dhexdhexaad ah isla markaana leh imkaaniyaadkii iyo waxyaabihii u baahnaa si uu guto waajibaadka la saaray qawaaniintiisana dib loo habeeyo iyadoo weliba la aasaasaya hay'adda dib u habeynta shuruucda dalka oo aaminsanahay inay muhiimad gaar ah u leedahay ay ugu qiimo gaar ah ay dalkan ugu fadhido marka waxaan madaxda kula dardaarmaynaa oo aanu ku boorinaynaa oo aanu si adag ugu soo celcelinaynaa dal haddaad dalkan rabtaan rajo ka leedihiin waxaad u baahan tihiin dalkan inaad garsoorkiisa muhiimad gaara oo aad u weynsaysaan qof kasta oo siyaasiya oo maanta kursi fadhiyaana waa inuu yaqiinsado siduu shalayba soo ahaa berri inuu xilkan ka degayo isla markaana uu u baahanaya garsoorkan isagoo shacab waxaan leenahay qofowna ha ku qiimaynin maanta kursiga aad joogto iyo danaha yararee kooban ee siyaasiga ee maalmaha dhammaan doona laakiin waxaad ka fikirtaa caruurtaad dhashay iyo kuwada awowta kuwa dhalan doona iyo mustaqbalka iyo markaad xafiiska ka tagto baahida aad u qabi doonto garsoorka taasaa loo baahan yahay inaynu ka fikirno haddaynu saas u fikirno waxaan hubaa inaynu gaari karno ujeedada iyo hadafka aynu leenahay dalka Soomaaliya aynu ka dhigi karno dalka dunida ugu quruxda badan aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkeennii waa inoo xidhan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh